الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ليال وكلمتين لبعض يعني ugu talagalay inaynu ku difaacno Sheekh Abdul Haq waxaanaynu ciwaan uga dhigaynaa يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا كلمتي hore walaalayaal waxaanu kaga hadalay qaabka qofka ruqyada loogu tufayaa ma tawqiifi ba mise waa ijtihaadi waanaynu sharaxnay qofkii faahfaahin doonayaana kelmadda ha ku noqdo waxaynu kaloo ka hadalay shuruudda loo dhigayo ruqyada oo saddex ahaa ruqyadu inaanay shirki ahayn in macnaheeda la fahmayo in qofka wax ku tufaya iyo ka lagu tufayaaba ay rumaysan yihiin anna shifaa'a biyadillaah caafimaadku inuu gacanta ilaahay ku jiro ruqyadana ay sabab u noqon karto waxaynu kaloo ka hadalay biyaha dadka lagu rushaynayo ee casharka lagu tufay waxaana muhiim ah inaynu ogaano ilaahay shaytaanka wuxuu ka abuuray naar waljanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum naartana waxaa lagu baktiyaa waa biyaha saa daraaddeed qofku markuu cadhoodo ee uu shaytaankii naarta laga abuuray ka cadhaysiiyo waxaa layna faray inuu weysaysto si kulaylkii uu shaytaanku ku shiday uu isaga qaboojiyo biyaha haddii cashar lagu tufo oo kalaamu rabbilcaalamiin lagu tufo maxaad u malaynaysaa waxaynu kale ka soo hadalay kelmaddan sixir ama jin waxaynu tilmaanay inay ka mid tahay waxyaabaha ijtihaadiga ah waxaynu kaloo ka soo hadalay culimo fara badan oo qaabab aan nebiga ka sugnayn ku daweeyey dad xanuunsanayay maantana insha allahu tacaala kolley qaar ka mid ah waynu tilmaami doonaa marka waxaynu leenahay wadaadada laqad xajartum waasican waxaan baraarujinayaa darsigeennii hore markaynu tilmaamaynay ruqyatu namla annamla waxaa la yidhaahdaa nabarro qofka dhinacyada ka soo baxaya oo xadantaynaya waxaana namlo loogu bixiyey qofka ayaa xadantoonaya oo waxa uu moodayaa inay quraanjo dushiisa ku soconayso maanta kelmaddeennu waxay ku saabsanaan doontaa dhowr qodob qodobka koowaad garaaca qofka suuxa ee jinku ku jiro la garaacayo xukunkiisu muxuu noqonayaa qodobka labaad hadalka jinka lala hadlayo isagana xukunkiisu muxuu noqonayaa waxaanaynu u qaybin doonaa insha allahu tacaala saddex qaybood qaybta koowaad in jinkii lagu yidhaahdo ukhruj caduw allah waana sidii rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu ku yidhi ukhruj caduw allah ana rasuulullah waxaynu kaloo ka hadli doonaa qaybta labaad ee hadalka ah oo noqonaysa in jinkii xujada lagu oogo oo la yidhaahdo ma islaamaysaa mise gaalnimadaada ayaad ku tegaysaa miyaanu ku dilaa mise qofkan waad ka baxaysaa qaybta saddexaad ee hadalka oo noqonaysa hadal dhex maraya qofkan raaqiga ah ee qofka xanuunsanaya wax ku tufaya iyo jinkan qofka ka hadlaya saddexdaa qaybood baynu qaybin doonaa qodobka saddexaadna wuxuu noqon doonaa sheekhu jinkuu rumaystaa waa qodob aad u muhiima aadna loogu eedeeyey walaalayaal waxaan doonayaa inaan tilmaamo sidoo kale sheekha markaan leeyahay waan difaacaya uma jeedo khalad kasta oo uu galay waan ka difaacaya waxaa jira akhtaa' waaweyn oo sharciga ilaahay iyo diinta ilaahay khilaafsan oo aan laga difaaci karayn culimmadii ku eedeeyeyna ay ku saxan yihiin laakiin anugu waxaan aan ka difaacaya waxa weeye wixii ay iila muuqatay inuu ku saxan yahay culimmaduna ay ku soo eedeeyeen waxaan kaloo insha allahu tacaala tilmaami doonaa oo aan kelmad gaara ka dhigi doonaa khaladaadka aan laga difaaci karayn ee sheekha xafidahullahu aynu uga nasteexaynayno iyo khaladaad kale oo culimmadu aanay sheegin oo aynu ku kordhin doono kelmadda hore waxaynu ku soo qaadanaynaa jinka in la waraysto iyo in qofka xanuunsanaya ee suuxaya la garaaco waxaynu ka duulaynaa hadalkeennii hore ee ahaa ruqyadu waa ijtihaadi waxaanaynu ka warrami doonaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullahu tacaala oo mawduuc ah aad ugu dhuundaloolay bal waxyaabihii uu ka tilmaamay qayb ka mid ah alimaam ibnulqayim raximahullahu tacala wuxuu leeyahay jinka marka la daweynayo ee qofka suuxaya ee jinku ku jiro la doonayo in la daweeyo qur-aanka ilaahayna lagu cilaajiyo ruqyadaasi inay saamayn yeelato laba arrimood baa sababaya qofkan la daweynayo siduu ilaahay ugu xidhan yahay ilaahay u taala saaranayo alla ka cabsigiisa keliyeynta uu ilaahay keliyeynayo iyo tawxiidkiisa sidoo kale qofkan wax daweynayana tawxiidkiisa
ilaahay keliyeynayo iyo alla kacabsigiisa iyo tala saaradka ilaahay tala saaranayo iyo sida uu adkaartii adciyooyinka uu ugu gaashaamanayo ayay ku xidhan tahay qofkaa wax ku tufaya inuu dawoobo. marka wuxuu ka warramayaa dadka alla kacabsigoodu inuu kala duwan yahay, tala saaradka ilaahay ay tala saaranayaanna uu kala duwan yahay. taasina ay ku xidhan tahay qofkan la daweynayo inuu dawoobo. markaase wuxuu ka hadlayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam qofkii xanuunsanayay ee loo keenay wuxuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ukhruj caduw allah ana rasuulullah, cadowgii ilaahay ka bax, anigu waxaan ahay rasuulkii ilaahay. kadibna uu iskaga baxay. nebiga tala saaradkiisii iyo alla kacabsigiisii iyo yaqiintiisii iyo tawakulkiisii iyo tawxiidkiisii iyo iimaankiisii ayaa ahaa mid aad u xoog badan. kadibna waxay keentay in isagoon qur-aanba ku akhriyin uu jinkiis ka tago iyo wixii qofka ku jiray. xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in iyadoon qur-aan lagu akhriyin jinkii lagu odhan karo qofkan ka baxa. taasina waa mid ka muuqata xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam. oo qur-aanku ma akhriyina wuxuu yidhi ukhruj caduw allah ana rasuulullah. marka taasina waa mid sheekh cabdulxaq marmarka qaarkood ka dhacda. markaa diintu fiqi iyo faham bay u baahan tahay, maaha mutashaabih sideeda loo qaadanayo. markaasaa wuxuu ka hadlayaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullahu tacaala. wuxuu odhanayaa waxaan arkay sheekhayagii oo u diraya qofka xanuunsanaya ee suuxaya ee jinku uu ku jiro cid waxaa ku jira kala hadasha oo ku tidhaahda sheekhii wuxuu ku yidhi waa ibnu taymiye ukhrujii fa inna haada laa yaxillu laki. cidduu diraya buu ku odhanaya waxaad ku tidhaahdaa iskaga bax, arrinkani kuuma xalaal aha. kadib ninkii wuu u tegaya qofkii xanuunsanayey. markaasaa wuxuu ka odhanayaa hadalkii uu ibnu taymiya soo faray. markaasaa qofkii wuu soo miiraabaya, caadi buu noqonayaa, wixii ku jirayna way ka baxayaan. waa saamayn la yaab leh. halkaa intaana dhaafin waxaan leeyahay qaabkaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo wax u daweeyey. taas waxay ku caddaynaysaa inay ruqyadu tahay ijtihaadi. waxaa suuragala buu leeyahy ibnuqayim raximahullahu tacaala marmarka qaarkood inuu sheekha laftigiisu la hadlo qofkii suuxayay wixii ku jiray, kadibna uu saa kaga baxo. marmarka qaarkood waxaa dhici jirtay buu leeyahay waxaan qofka ku jiraa inuu yahay mid madax adag, kadibna uu sheekhu kaga saaro garaac uu garaacayo. markuu garaaco kadib uu qofkii soo miiraabo oo uu caadi noqdo, xanuunkii iyo garaacii la garaacayna aanu dareemin. taana waanu aragnay buu leeyahay annaga iyo dad kale oo fara badanba. wuxuu kaloo ibnulqayim raximahullahu tacaala uu yidhi sheekheegu wuxuu aad ugu akhri jiray qofka xanuunsanaya dhegtiisa afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun. wuxuu kaloo iga warramay buu yidhi inuu mar wakhtiyada ka mida qof ku akhriyey dhegtiisa aayaddan, kadibna wixii ka hadlayay uu yidhi nacam wamadda biha sawta, haah inuu yidhi codkiisana uu weliba kor u qaaday. marka wuxuu leeyahay yani wuxuu sheeganayaa ilaahay inuu ciyaar u abuuray xaggiisana aan loo celinayn. markaasaa wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullahu tacaala ul ayaan qaatay, waxaan kaga garaacay cunaha ilaa ay gacantaydii daashay oo aan qaadi kari waayey garaaca aan garaacayay daraadii. dadka meesha joogayna kamay shakiyin inuu garaaca u dhimanayo. wuxuu yidhi anoo garaacii ku wada ayaa wixii qofka ka hadlayay wuxuu yidhi ana uxibuhu, waan jecelahay qofkan. dabeetana waxaan ku yidhi buu yidhi haddaan ibnu taymiya ahay huwa laa yuxibuki, haddaba isagu kuma jecla. haddana wixii baa hadlo wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan la xajo. waxaan ku yidhi buu yidhi huwa laa yuriidu an yaxuja macaki, ma doonayo isagu inuu kula xajo. wixii qofka ka hadlayay baa haddana wuxuu yidhi ana adacuhu karaamatan laka, haddaba anigu waan iskaga tegayaa maamuusid aan ku maamuusayo haddaad ibnu taymiya tahay. waxaan idhi buu yidhi ibnu taymiya laa walaakin taacatan lilaahi walirasuulih, maamuus aad aniga maamuusaysa ha kaga tegin ee waxaad kaga tagtaa adeecitaan ilaaha iyo rasuulkiisa aad adeecayso. kadib wixii ka hadlayay wuxuu yidhi fa ana akhruju minhu, haddaba waan iskaga baxaya. ibnu taymiya wuxuu yidhi qofkii xanuunsanayey wuu fadhiistay isagoo midig iyo bidix eegaya. waxaanuu yidhi maa jaa'a bi ilaa xadrati shaykh, sheekhu goobtan uu joogo maxaa i keenay? dadkii baa yaabuu yidhi wa haada darbu kulluh, oo mayadoo waxaasoo garaac la garaacay ayuu hadlayaa oo uu nool yahay. faqaala wacalaa ayi shayin yadribuni shaykhu walam udnib. qofkii xanuunsanay baa hadloo yidhi oo sheekhu muxuu igu garaacayaa anigoon dembi iyo khaladba aan samaynin. sheekhu wuxuu leeyahay ibnu taymiya raximahullahu tacaala
muu dareemin inuu garac ku dhacay. wuxuu kaloo ibnuqayim raximahullahu tacaala yidhi wuxuu sheekhu wax ku daweyn jiray aayad kursida, wuxuuna fari jiray in fara badan in lagu akhriyo qofka xanuunsanaya, sidoo kale in lagu akhriyo almucawadatayn, labada qul acuudu. halkaa waxaynu ka qaadanaynaa in jinka lala hadli karo oo haddii uu hadlo loo jawaabi karo. waayo sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullahu tacaala waa innagaa ka warranay jinkii qofkaa ku jiray iyo isaga inuu hadal dhex maray. waxaad ka eegi kartaa atibu nabawi libni alqayim raximahullahu tacaala bogga 350 ilaa 450. wuxuu yidhi sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullahu tacaala ولهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجني ولا يحس به المصروع حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك. حليهي waxaa loo baahan karaa qofkii xanuunsanayay si loo daweeyo jinkana looga difaaco in la garaaco garaac aad u fara badan. waxaa la garaacayaa buu leeyahy garaacuna wuxuu ku dhacayaa jinniguu ku dhacayaa. qofkan xanuunsanaya ee suuxayna dareemi maayo ilaa marka dambe uu ka miyirsado oo uu soo miraabo oo uu ka warramo inaanu garaaca la garaacayay dareemin, jirhkiisana saamayn kuma yeelanaya buu yidhi. waxaana dhacda buu yidhi in ul xoog badan lagu garaaco, lugahana laga garaaco 300 oo garaac ama 400 ama in ka badan ama in ka yar. haddii insiga lagu dhufan lahaa garaacaana uu garaacaasi dili lahaa, laakiin wuxuu ku dhacayaa buu leeyahy jinniguna wuu qaylinayaa oo wuu dhawaaqayaa. dadkan meesha yimina wuxuu kusoo dirisiinayaa arrimo fara badan oo ay la yaabaan. sidaanu samaynay in fara badan oo aanu tijaabinay marar badan, waxaana dheeraanaysa buu yidhi inaan tilmaamo. waxaananu ka hor samaynay makhluuq aad u fara badan. majmuucu alfataawa juska 19aad bogga 60aad. wuxuu kaloo odhanayaa sheekhu raximahullahu tacaala walihada qad yudrabu almasruucu darban kathiira xataa qad yaqtulu miluhu alinsiya. wuxuu kaloo yidhi waxaa loo baahanayaa qofka xanuunsanaya in la garaaco in fara badan ilaa laga yaabo garaacani inuu insiga dili lahaa ama uu xanuunku keeni lahaa hadduu isagu ahaan lahaa kala garaacayo. laakiin garaacaasi saamayn kuma yeelanayo insigii. waxaanu ka warramayaa markuu miyirsado inaanu waxba dareemin, waayo garaacaasi wuxuu ku dhacay buu leeyahay jinkan ku jiray ee jirhkiisa isticmaalayay. awliyaa uraxmaan wa awliyaa shaytaan ayuu ka odhanayaa juska 1 safxada 130. marka halkaana waxaad ka garatay garaacan la garaacayo qofka jinku ku jiro inaanu dhib lahayn, culimmaduna ay samayn jireen, waana waxyaabaha ku tusinaya in ruqyadu ay tahay ijtihaadi ee aanay tawqiifi ahayn. waxaynu kaloo ka hadlaynaa in xujada lagu ogo jinniga. waxaynu soo tilmaannay jinka hadalka lala hadlayaa inuu 3 qaybood ahaa, in lagu yidhahdo cadowga ilaahay u bax, sidoo kale in xujada lagu ogo, sidoo kale in hadal caadiya lala hadli karo sidii shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullahu tacaala aynu ka soo rarnay. qodobkan xigaynu ka hadlaynaa waxaa weeye iqaamatu alxujati cala aljinniyi, jinniga in lagu ogo xujada. shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullahu tacaala wuxuu leeyahay jinku haddii ay kusoo xadgudbaan insigii waxaa looga warramayaa xukunka ilaahi iyo xukunka rasuulka, waxaana lagu oogayaa xujada. wanaaggana waa la farayaa, xumahana waa laga reebayaa, sida insigaba intaa loogu samaynayo. waayo ilaahay wuxuu leeyahay wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcatha rasuula, ma nihin kuwa cadaabaya ilaa aanu u soo dirno rasuul ama cid xujada ku oogta. wuxuu kaloo ilaahay yidhi yaa macshara aljinni waalins alam ya'tikum rusulun minkum yaqusuuna calaykum aayaati wayundiruunakum liqaa'a yawmikum haada. ururkii jinniga iyo insigow miyaanay idiin iman rasuullo idinka idinka mid ah, rasuulladaasoo idinka warramaya aayaadkayga, idinkana digaya maalinkiina kan ah la kulankiisa. saa daraaddeed baa wuxuu leeyahay nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu reebay in la laayo abeesooyinka guryaha jooga ama masaska guryaha jooga ilaa 3 jeer la ogeysiiyo. oo waxaa ku sugnaaday saxiixu muslim iyo kayrkiiba abi saciidin alkhudriyina laga warinayaa inuu yidhi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam magaalada madiine waxaa jooga koox jinniya oo islaamay, qofka cid yaga ka mida arka meelaha camiran ee dadku ay joogaanna ku arka 3 jeer ha ogeysiiyo. hadday u muuqato intaa kadib ha dilo, waa shaytaane. marka waad ogeysiinaysa, haddaad ogeysiiso oo waxani uu yahay jinni islaamay way kaa tegayaan.
haddii laakiin ay kaa tegi waayaan marka 3 jeer ogeysiiso waad dilaysaa waayo waa shayaadiin saxiix muslimna waxaa ku sugnaatay qiso aad u la yaab leh waxaa laga warinayaa abi saib oo ahaa mawla hishaam ibn zuhra wuxuu leeyahay waxaan u soo galay abi saciidin al-khudriy gurigiisaan ugu yimi waxaan la kulmay isagoo tukanaya waan fadhiistay aniga oo sugaya si uu salaadiisa u guto oo u dhamaystirto intaa kadibna waxaan maqlay dhaqaaq ka imanaya laantimireed guriga dhinaciisa ahayd waan daymooday waxaan arkay mas ama abeeso kadibna waan ku booday anigoo doonaya inaan dilo wuxuu i tilmaamay abu saciidin al-khudriy inaan fadhiisto intaa kadibna waan iska fadhiistay markii uu salaadii ka baxay ayaa wuxuu i tilmaamay guri wuxuu igu yidhi atara hada albayt gurigaa ma aragta wuxuu yidhi nacam haa waan arkaa wuxuu yidhi gurigaa waxaa ku jiray wiil dhalinyaro ah oo aroos ahaa wuxuu yidhi wiilkii dhalinyarada ahaa baanu israacnay waxaanan u tagnay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana ahayd dagaalkii khandaq markii godka la qodeeyey wiilkaasi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu fasax ka dalbayey marka maalintu ay kala badh noqoto waxaanu ku noqonayay gurigiisa marka maalin maalmaha ka mida ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam u fasaxay waxaanu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam hubkaaga qaado waxaan kaaga baqayaa qurayda reer banu qurayda yuhuudi kadibna ninkii hubkiisii ayuu qaatay waanu noqday oo gurigiisii ayuu aaday wuxuu la kulmay gabadhiisii oo albaabka taagan kadibna xaggeedii ayuu u foorarsaday si warankii uu sitay uuga taago sababtuna waxay ahayd waxaa haleelay hinaase wuxuu ka hinaasayaa gabadhiisa dibadda taagan dadkii horena waxay ahaayeen dad nool oo xaasaskooda iyo hablahoodaba ilaashada inay dibadda u baxaan ama cid ay la hadlaan ka ilaaliya markaasaa waxay ku tiri gabadhii warankaaga dib u cesho gurigana soo gal si aad u aragto waxaa gurigayga soo saaray guriga ayuu galay wuxuu la kulmay mas ama abeese aad u weyn oo furaashka dushiisa duuduuban wuxuu kula dul dhacay warankii uu sitay oo uu ka taagay markaasaa uu soo baxay maskii ayaa soo dhaqaaqay oo xaggiisa u soo dhaqaaqay wuxuu leeyahay saxaabiga abu saciid ma garanayno isaga iyo maskii ka hor dhintay kadibna wuxuu yidhi waxaan u nimi rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrinkii baananu u sheegnay waxaananu ku nidhi rasuulkii ilaahayow udcu allaha yuxyihi lana ilaahay waxaad ka baridaa inuu ninkan soo nooleeyo kadibna rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi istakfiruu lisaaxibikum saaxiibkiin ilaahay dembi dhaaf weydiiya dee waxaynu ogsoonahay inaanu soo noolaanaynin ilaahay doona mooyaane xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun kadibna wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam magaalada madiina waxaa jooga jin islaamay markaad cidiga ka mid aragtaan ogeysiiya 3 jeer ama 3 maalmood haddii ay idiin muuqatana dila waa shayaadiine wuxuu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wadalika ana qatla aljinni bigayri xaqin laa yajuus arrinkaas wuxuu ku sugnaaday in dilka jinka la dilaya xaqdarrana lagu dilaya aanu bannaanayn kamaa laa yajuusu qatlu linsi bilaa xaqin sidaanay u bannaanaynba in insi xaqdarre lagu dilo dulmiguna waa xaaraan xaalad kastaba qofna uma bannaana inuu cid kala dulmiyo ciddaa uu dulmiyayaa gaalba ha noqotay qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqist kuwa ilaahay rumeeyeyow waxaad ahaataan kuwa toosan ilaahay daraaddii markhaatiyah oo cadaalad ka markhaati kacaya walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu yaana idinku kallifin nacaybka cid aad necab tihiin inaanaydun cadaalad samaynin icdilu cadaalad sameey huwa cadaaladda ayaa aqrabu litaqwa alla ka cabsi u dhow huwadaasi alcadaala bay noqonaysaa mastarka laga fahmay icdilu wataqu llaha ilahay ka cabsada ina allaha ilahay khabiirun waa mid xogogaal u ah bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan hadalkaa waxaynu ka soo guurinay majmuuc alfataawa juska 19aad boga 24 ilaa 43 kelmaddan waxaan ku gabagabeynayaa
maxaa sababa qofka inuu jin galo sheekhul islaam ibnu taymiya raximahullahu tacaala ayaa ka jawaabaya wuxuu leeyahay jinku inuu dadka galo oo uu suuxiyo oo ku adeegto 3 arrimood baa sababa arrinta koowaad waxa weeye jinku inuu jeclaado qofkan uu galay si uu ugu raaxaysto qisadii aynu soo maraynayna waxa xasuusta ma filaya ana uxibuhu buu jinku noocaasana ugu sahlan buu leeyahay marka la eego xagga cilaajinta ama daweynta talabaad insigu inuu dhibaateeyo jinnigan tusaale ahaan uu ku kaajo ama biyo kulul ku shubo ama qaariga kamida uu laayo ama uu ku sameeyo dhibaato kale kaasana ugu adag buu leeyahay marka la eego xagga daweynta in fara badan waxa dhacda qofkaas jinku inuu dilo ka saddexaad waxa weeye inuu jinku qofkan u galo ciyaaru qofkan ku ciyaaray daraadid sida dadka maangaabka ah ee insiga ay ugu ciyaaraanba qofka musaafirka ee socotada ah hadalka wuxuu ka oranayaa daqaa'iq tafsiir ibn taymiyah juska 2 safxada 137 waxaan kaloo tilmaamayaa sheekhu jinka ayuu rumaystaa arrin maaha sax marka saa loo itlaaqo waayo muuqaaladiisa haddaad u fiirsato wuxuu ku cadaynayaa inuu jinku beenaale yahay shaydaanku wuxuu sheegayo waa beenaale shaydaanku wuxuu sheegayo waa beenaale laakiin zamanka la joogo darisku way isku maqan yihiin labada saaxiibadana way isku maqan yihiin dumarka la saaxiibaya jawaabtooda waa sidaas weeyaan hala socdeen hana iska ilaaliyeen innaha soo dhawaysan gurigaagana naag hala saaxiiban hana isu keenin walaalayaal waxaa laga yaabaa dadka qaarkood iyagoo aan waxba u fiirsanin ay wax iskaga hadaaqaan waxyaabaha aadka la yaab kale waxaa ka mid ah kelmadda hore ee aan sheekha ku difaacayo xafidahullah wahadaahullah ayaa markaan saa u soo geliyey meelahan ay dadku ka wada hadlaan dadka qaar ka mida ayaa iyagoon dee daarinba ayay tacliiqiyeen walaalaha waxaynu ku leenahay ninkii shaacirkaa wuxuu yidhi wacaynu ridaa can kulli caybin kaliilatun walaakina cayna sukti tubdi lmasaawiya isha raali noqoshaha tilmaamaysa ceeb oo dhan way qarisaa isha cadhaduna ceeb oo dhan bay muujisaa dadka marka laga hadlayana 2 arrimood baa muhiim ah al-ikhlaasu wal-insaaf in ilaahay daraadii ka tahay iyo inaad qofka u cadaalad samaynayso haddii laakiin wax kastaba aad ku moosto oo saynu tilmaanay wixii xunba xawaalaad kaga dhigto taas waxay noqonaysaa mid gardarra والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك